ku duwo markaan aad ayaad u mahadsantahay cabdixafiid maxamuud jaamac adiga iyo martida barnaamijka arrimaha bulshada qaybtiisa magaalada Cape Town idinkaga imaan doonta waxaa marti noogu ah Sheekh Maxamuud Maxamed Cadar oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga dacwada islaamiga ee Albayaan ahna gudoomiyaha golaha dacwada islaamiga ee Albayaan ee gobolka Western Cape sidoo kale waxaa marti noogu ah Sheekh Xuseen Xasan Cusmaan oo ku magac dheer Sheekh Xuseen Shibis oo ah gudoomiyaha ganacsatada Soomaalida magaalada Cape Town sidoo kale waxa uu ka mid yahay sheekha guddiga dacwada islaamiga ee Albayaan kana howlgala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaan jeclaan lahaa inaan markii hore ku hormaro Sheekh Xuseen Shibis oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha ganacsatada Soomaalida gobolkan Western Cape khaasatan magaalada Cape Town Sheekh Xuseen Shibis waad ogtahay waxyaabaha dalka ka dhacaya iyo dhibaatada dalka Soomaaliya hareereysay 20 sano ee la soo dhaafay haba ugu badnaadaan dilalka loo geysanayo dadka culimada diinka ah amba aqoon-yahanada saxafiyiinta amba waxgalka bulshada Soomaaliyeed arrintaasi ayaa in badan soo jeedatay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee kuwa qurbaha joogay iyo kuwa gudaha jooga intaba marka xarakada al-shabaab maxay nabadda u qaadalaada Xuseen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد runtii waa su'aal muhiima anigu waxaan isleeyahay waxaa jira sababo badan keenaya in ururka al-shabaab aysan nabadda diyaar u ahayn ama in nabad ay qaataan marxaladan hadda aysan diyaar u ahayn waxaan isleeyahay asbaabo badan ayaa jira ugu horeeyo sidaan ognahay al-shabaab waa qayb ka mid ah ururweynaha al-qaacida taasa waxay keenaysaa marka in iyagu aysan ku dhiiran karin marnaba in ay galaan heshiis gaar u ah iyaga waxaan ognahay ururweynaha al-qaacida qaamuuskiisa inuusan ku jirin wada hadal xataa waxaad ka fahmi kartaa tarkiibada ama hab dhismeedka ururka uu leeyahay inaysan ku jirinba calaaqaad khaarijiya ama dad u qaabilsan waxaan arkaynaa afhayeen waa leeyihiin waxay leeyihiin dad ciidanka u qaabilsan laakiin marnaba ma aanan maqal dad u qaabilsan wada hadal ama xiriirka dibadda marka taasa waxay keenaysaa in al-shabaab marnaba inaysan diyaar u noqon in heshiis ay galaan qodobka labaad waxaan isleeyahay oo asbaabaha labaad keeni karta in al-shabaab inaysan heshiis galin aragtida ciriiriga ah ee ku dhisan keli talisnimada oo ah aragti maxaan ku iraahdaa ananiyo ku dhisan oo ay u arkaan in iyaga kaliya mooye cid kale aanay wax qaban karin taana waxaa u daliil waaqaca waxaan arkaynaa xataa axsaabtii kale ama ururadii kale ee dagaalka kula jiray inaysan u ogolan xataa inay ka barbar dagaalamaan waad maqlaysa Sheekh Xuseen waxa uu ka dhawaajiyay marka su'aashii aan weydiiyay ahayd maxay al-shabaab u qaadalaada nabadda maxaa ku darleed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد نبض مركز لقى الله هرتا نبض معناه هذا حوي إن لا تنازله ليس تنازله إن ليسوي ماده مال لحى إن لقى هذا الله وحقيبسي أو قيبسي بايمانيسا إن واحد ليسكو درسده بايمانيسا إن maadaama oo marka nabadu arrimahaas oo dhan ay hoos ku wadato aragtida sidaas Sheekh Xuseen tilmaamay nimankan shabaabku saamaxaysa ma aha fikriyan aragtida ay ku socdaan ay ku qanacsan yihiin waxa weeye in aan cid kale waxba la wadaagi karin in shicaarkoodu waxa weeye sida macruufka la garanayo ilaahay diinkiisa cid kale kuma aamini karno waxay qaateen mas'uuliyad runtii aad iyo aad u culays badan oo dabcan dadka hadda lagama diin jeclaa lagama diin badna ummadani weligeed bay muslim soo ahayd aragtida ay ku qanceen ayaa waxaa ka dhalanaysa inaanay raalli ku noqonin cid kale in wax lagu aamini karo wax lala wadaagi karo wax lagu darsan karo aragtida ay aaminsan yihiin ayaa u diidaysa ku salaysan in runtii wax aan dhulka iman karin ah dhulka la soo dhigi karin yani waxyaabo la iska aaminsan yahay oo kombiyuutarada ku jiri kara warqado ku qoraan kara laakiin dhulka inta la dhigo aan la socodsiin karin waadna arkaysaan haddii xataa hadda ay dhacdo aragtidooda sidayna barayso hadday dhacdo inay Soomaaliya ku guuleystaan ay gacanta ku dhigaan
soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadeed ma yeelan doonto soomaaliya safaarad ajnabi ah kama furan doonto dal kale safaarad ajnabiga gudaha lagama furan doono wax xiriir ah adduunyadani marka waa nooca isku xidhnaanshaha kale oo nimankan ay ku xidhan yihiin raggaa la tilmaamayna qayb ay ka tahay maxaa yeelay tandiimkaas guud ee alqaacida oo wuxuusan qaadanin iyagu ma qaadan karaan afghanistan oo laga wada hadlin meelaha kale ka dagaalamaan oo lagu wada hadlin midda kale yaa gelaya wada hadalka laftooda wada hadalka yaa gelaya hala wada hadla hadii la yiraahdo lafteeda marka taasi waa aragti iyagu ay ku qanceen ay aaminsan yihiin salna oo ah aanay usoo istaagi karin nabad inaan diyaar u ahayn cidna inay wax la qaybsadaan sida la tilmaamay raggii la dagaalamayay ka garab dagaalamayay baa meeshaad aragtay la mariyay oo isdhiibay oo lagu khasbay inay bustaha dhiigale iska huwanaadaan waa hagaag interviewga dheer dib baan ugu noqon doonaa dhowaan waxaa khadka taleefonka iminka si toosa ugu jira magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga qaranka soomaaliyeed master cabdiraxmaan dheere oo magaalada muqdisho jooga mudane may maqashaa waa ku maqlay cabdiladiis aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa xilligaan oo xilli dambe ah inaad naxayto naga aqbashay inaad hawada nagala hadashid aad baana kugu mahad celinayaa mar labaad waxaan jecelahay in aad marka koobaad noo sheegtid siyaasadda ku wajahan siyaasadda dowladdaada ee ku wajahan ururka al-shabaab sidii nabad dalka loogu soo dabaalin lahaa iyo wanaag dhiiggaan daadanaya dhibaatadana looga hortegi lahaa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabb alcaalamiin wasala ala nabiyina maxamed waali wasaxbi wasalam marka hore waa ku salaamayaa asxaabta ama culamada meesha ku jirta ama aad kasoo duubteen ama warkaa kasoo duubteenna waa salaamaya dhammaantood runtii waan idinkaga mahad celinayaa abaabulka iyo wacyigelinta tvga universal u sameynayo bulshaweynta soomaaliyeed dowladda soomaaliya haddaan hore u galo iyo waxa ay ka aaminsantaha al-shabaab waxaa ogtihiin sidii loo sheegay culamada hadda iga horeysan ay u sheegeen ujeedooyinka iyo ahdaaftooda waxa waaye inaysa dowladda isa ka dhalan soomaaliya qarannimo iyo calan iyo maxay ahayday nidaamkan adduunka ka jiro adduunka lagu wada nool yahay inaana aysan maaragtay aysan u soconin ay rabaan nidaam aan hadde annaga aana garanaynin meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socdo saas daraaddeed annagu ujeedada iyadu waxa weeyaan dowladnimo iyo qarannimo in la soo celiyo marka labadaasaan ku kala duwannahay farqiga saas daraaddeed hadde annagu waxaan ku waajib nagu ah inaan xaqiijino in ummaddan qarannimadeeda iyo dowladnimadeeda iyo midnimadeeda la ilaaliyo mabaadi'deeda iyo shareecadeeda islaamkana la ilaaliyo nimankan runtii shabaabna annagu dee hadda dagaala nagala dhexeeya waxa keliya oo aan mabda ahaan u aaminsannahayna waxa weeye maadaama aysan u soconin qarannimo iyo dowladnimo iyo shareecada ilaahay oo la tadbiiqiyo oo si kale diinta u fasirayaan ood arkaysid culamadii soomaaliyeed kuwoodii ugu maaragtay caansanaa maanta in la leynayo cuqaashii hore loo laayay saraakiishii hore loo laayay cid kasta oo waxgala oo ummadan indhaheeda iyo maalin kasta indhaha laga tirayo dowladda soomaaliya waxaa ka go-an inay gacan bira ku qabato ururkaas lana dagaalanto meel maaragtay runtii ummadan ay ka badbaadiso masaa'ibkii dhibaatada ay ku hayaan ummadan laga dulqaado iyo dulmiga maaragtay ay ku hayaan shareecada ilaahayna aysan meel kasoo gelin ilaahay diintiisana ay ka beri sheeganayaan oo aysan raalli ka ahayn in maaragtay ilahay shareecadiisa la tadbiiqiyo laakiin ay sheeganayaan inay shareecada ilahay in la tadbiiqiyo inay rabaan oo aan isleenaha hadday ka been sheegayaan shareecada ilaahay marka dowladduna waa dowlad islaami ah shareecada ilaahay ay tadbiiqinaysaa markastana waxay diyaar u tahay diinta ilaahay subxaana watacaala in koonkan lagu xukumo kitaabka ilaahay in lagu dhaqmo mabaadi'da iyo dastuurka u yaala dowladduna waxaa aasaas u ahay shareecada islaamka saas daraaddeed annagu go-aanka nooga yaala shabaab waa dagaal inaan la dagaalano ummadan iyo dalkan iyo dadkana aan ka qabano bulshaweynta soomaaliyeed iyo qeybaheeda kala duwan culamaa diinka iyo dhalinyarada iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwanna ayagana sidoo kale ayaan ugu baaqaynaa maaragtay inay sidaas oo kale iska maaragtay lala dagaalo shabaab maxaa yeelay wax faa'iida ummadan iyo dalkan iyo dadkan ay u hayaan midna ma jirto mudane dagaalanka iyo xabadda waan usoo noqon doonaaye madaxweynaha waxa uu sheegay hadda ka hor markii doorashadiisii kadib muddo yar kadib inuu al-shabaab wada hadallo iyo weji cusub uu la bilaabi doono kula hadli doono wada hadalladaasu xaggey ku dambeeyeen baad isleedahay walaalo anagu dee waa madaxweynuhu waa saa sheegto waaye waa sheegay laakiin waxa weeyaan dee nimanku hadday hadda dowladnimo iyo waxaan u soconay ay rabi lahaayeen waaba lala hadli lahaa
laakiin de ayagu qeybaha ay ka duwan yihiin qeyb waa iska ajaanib waa ogtahay niman dee wadankoodii kasoo tegay wadamada ugu shisheeya dunida inta kasoo tega raba inay wadanka dhibaato qeyb afkaartooda iyo afkaar xunxun oo runtii aan meel raadka aaminsan iyo qeyb la dhumiyey u kala qeybsado dhumiya ugu dhow dadku inay soo noqdaan laakiin nimanka hadda afkaartaas aaminsan runtii ilaahay sharaacadiisa ka bixi sheegayo iyo kuwa ajnabiga midna rajaanaya hadda kama qabo mudane cabdiraxmaan codkaagu sidii hore ma ahan waxaan u malaynayaa meeshii maad ka dhaqaaqday mise hawada xun garan maayo laakiin ilaa iyo haatan sidii uu madaxweynuhu ugu dhawaaqay in la wada hadallo la furi doono ma waysan jirinin si kastoo al-shabaab ama u fog yihiin ama u madax adag yihiin ama ay xaqa u diidan yihiin waa sidaad hadalka u dhigtay dowladdu nidaam ay soo dhigtay miiska oo ay tiri dariiqaan aanu doonaynaa al-shabaab inaanu kula hor fadhiisano dad ay u saartay oo guddi ah culamaaudiin ha ahaadaan waxgarad ha ahaadaan siyaasiyiin ha ahaadaan dad ay garanayaan ha ahaadaan culamo ajaanib oo xataa ay dhegaysanayaan ha ahaadaan haba yaraatee wax la isku dayay ma jiraan intaan cawda loo jarin saxiib wataa ogtahay hadda kahor waxaa ogtahay dowladda naga horeysa dowladda sheekh shariif runtii waktigeeda aniga hadda kamid ah xukuumadihii hore waxaa hadda kahor loo saaray guddi culamaa udiina oo ogtahay oo dalada culamada soomaaliyeed ay kamid yihiin oo gogol dhigay oo u fidiyey inay yimaadaan ee hadal la furo mudda la sugaya waa ogtahay waa fashilantay in hadalkaas ay kasoo qayb galaan dhinaca dowladda laakiin markaas diyaar waxay ahaayeen in culamada inta la adeegsado ay ka qayb galaan in la wada hadlo taa waa suurageli weysay dowladan hadda madaxweyne xasan sheekh baaq ayuu ujeediyey ilaa ay haddana wax kasoo jawaabaan culamo badan waa arrintaa waa galeen laakiin de waxaan isleeyahay qof aan de xaq aan rabin oo dowladnimo rabin oon diin rabin si loo qanciyo lama yaqaano waxaa keliya oo lagu qancin karo waxaa waaye ummadda iyo dalka in laga qabto waxyaala aad is leedahay way tabanayaan oo diidaya inay dadka la fadhiistaan ama la wada hadlaan oo adigu aad taaban kartid ma jirtahay oo caawa hawada aad ummadda kula qeybsan kartid wallahi de waxay tabanayaan aniga aan ogahay ma jirto sababtoo ah hadda ninka ku qancay in qof muslima la dilo oo qof muslima hantidiisa la qaato oo qof muslima soo sujuudaya la toogto oo qof muslima waxay maraysaa maanta waxaa ogtahay masaajida ilaahay lagu cibaadaysanayo oo meelaha ugu fiicana oo ilaahay buqacyoonkiisa ugu mubaarakaysan maanta aysan suurad lahayn inuu inta qofka tago oo kusoo tukado waxaa arkaysaa qofkii meesha loo fadhiya inay masaajidka tahay waxaa arkaysaa qofkii meesha loo fadhiya dukaankiisa inay tahay waxaa arkaysaa bulshadii inay noolaan weysay oo mid kasta ay saamaysay hadduu sarkaal yahay iyo hadduu aqoon-yahan yahay iyo haddii culamadii soomaaliyeed ee caanka ahayd oo ilaahay diintiisa runtii juhdiga dadaal fara badan kusoo baxshay maanta aa arkaysa culamada soomaaliyeed inay masaajidii aysa xitaa ku cibaadaysan karin iska dhaaf inay xalaqaadkii iyo ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa inay dacwadii inay gutaan inay xitaa cibaadadii maanta ay gudan karin oo arkaysa masaajidii in lagu gumaadayo arrinkaa marka awgeed wax hadda oo aan raja aniga hadda aan ka qabo al-shabaab inay soo noqdaan ma jiro inkastoo aan naxariista ilaah markasta aan laga quusan laakiin haddana inta aan ka baranay runtii nimankaas waa niman runtii fogaaday oo khawaarija oo ilaahay subxaana watacaala in loogu dhawaado ay tahayba in ummadan iyo dadkan iyo dalkan laga qabto dadku mararka qaarkood waxay yidhaahdaan ama iyagu markay hadlayaan waxyaalahay tabanayaan marka laga hadlayo dhulka waxaa jooga ciidamo shisheeye oo dhulkeenii kusoo duulay ma la oran karaa arrintaasay qoonsanayaan su-aasha labaadoo dhinac taaloon jecla inaan ku weydiiyaano waxay tahay dowladdan hadda curatay oo iftiinka ummadda soomaaliyeed usoo baxday ah haddii ay ciidamada dabadda ciidamada qalaad hadday dalka ka baxaan al-shabaab ma ka nabad helayaan dowladda al-shabaab ma ka nabad helaysaa nabiga ay nala joogahay runtii annaga ayay runtii ka caawin noo yihiin wayna kaalmeynayaan ciidamada hadda nagu soo duula dalka soomaaliya qabsaday ma ahan midda labaad haddii shabaab wadanka ay ka baxaan haddaba ciidamada hadda nala joogo ma yihiin niman inta dagaalka qoryaha iska dhigo oo ummadda wax la qeybsado oo shareecada ilaahay tadbiiq maaragtay dowladnimo iyo aadaya ma yihiin maya wey ana aragtidayda niman hadda halkaa u socda maahan marmarsiya hadday ka dhiganayaan waa wax kale marka aniga waxaan dhihi lahaa un hadda wax hadda dhinacaas ay marmarsiya oga dhigtaan ma jirto dowladdu waa dowlad runtii shareecada ilaahay tadbiiqinayso waa dowlad runtii annaga waxaa ogtahay shacab muslima 100% aynu nahay waxaan u taaganaha waa shareecada ilaahay in markasta la ilaaliyo iyo mabaadida islaamka
wax kasta oo dastuura iyo wax kasta oo la dhigtana waxaa asal iyo waa shareecada ilaahay wax kasta oo shareecada ilaahay kasoo horjeedana annagana raalli kama nihin shacabka soomaalina midna raalli kama ahan marka dawladdan waa iftiin waa wax usoo baxay runtii maantay shacabka soomaaliyeed waa soo daalay 22 sano dagaal kusoo jiray wuxuu maanta u baxay nabad iyo horumar iyo iftiin dawladnimo iyo maaragtay wanaag intaas la wada abaaro nimankan ilaahay maaragtay shareecadiisii ka been sheegayana oo wax kasta oo qof muslim ku noolaan karo u diiday inuu ku noolaado in laga hortago oo laga shaqeeyo culimada iska kaashado shacabka qaybihiisa kala duwan la iska wada kaashado maxaa yeelay fidnada qofka gaarka ay ku tahay markaas la ugaarsanaya kuma ekaanaysa dadkoo dhan ay camimaysaa dadalaad waxaa la rabaa in ummadaas runtii laga qabto nimankaas hadda khawaarijta waxaa shaqada ugu badan runtii culamadii u taallaa oo ah inay maaragtay caddeeyaan mabaadi'da iyo waxa ay sheeganayaan nimanka oo diina inaysan diinahayn ummadda muslimka ah inay u caddeeyaan shareecada ilaahi waxa ay ka qabto nimankaas in lala dagaalo in loo caddeeyo oo dowrka culamada ay qaataan kuna taageeraan dawladda in maaragtay nimankaas lala dagaalo wixii maaragtay runtii ummaddan iyo dalkan horumar gaarsiin karana in culamada soomaaliyeed ay dawladda soomaaliya ku taageeraan garab istaagaan si nimankaas khawaarijta oo ilaahay kitaabkiisa diintiisa ka been sheegaya ummadda looga qabto mudane cabdiraxmaan waxaan jecelahay inaan nafteeda iyo taaliya daawadayaashaba xasuusiyo qeybtii hore ee waraysigaanu ka soo qaadnay sheekh umal waxa uu sheegay uuna ka hadlay muhiimadda ay leedahay culamaa udiinka soomaaliyeed ee ahlu xadiidka in ay dowladda iyo ayagu wada shaqeeyaan kuna wada shaqeeyaan wax qodobada iminka taabatay oo wanaagga qarannimada nuurka iyo kitaabka ilaahay iyo kala dambeynta ah adiguna waxaad sheegtay culummadu inay doorkooda qaadato maxaad isleedahay culummada soomaaliyeed waa looga baahan yahay inay dowladdan shalay curatay ay gacan ka siiyaan si karaamadii iyo cizigii iyo sharaftii ummadda soomaaliyeed ay dib ugu soo noqoto culamada soomaaliyeed runtii waxaa laga rabaa mudane cabdiraxmaan codkaagu uu igu yar yahay sidii hore uu ku wanaagsanaa culamada soomaaliyeed runtii waxaa laga rabaa laba shaqo inay qabtaan shaqada ugu horeysa waxa nimankan iyo mabaadi shareecada ilaahi waxa ay ummadda u cadeeyaan oo ay maxay waa xalkii nabi maxamed sallallahu maadaama ummadda u cadeeyaan wixii maxamed calayhi salaam laga dhaxlay oo bayaana inay wada laga rabaa haddii dawladdu khalad in laga saxo in la garab istaago oo lagu garab istaago inay ummaddan ay meel fiican ay geyso dawladdaas haddii oo dawladda aan la cabiyin oo dawladda aan la garab istaagin waxa la xajinayo oo ahdaaf oo ah shareecada ilaahay in la ilaaliyo dadka in dhiiggiisa la ilaaliyo dadka in maalkiisa la ilaaliyo dadka in kasharaftiisa la culamada mudane cabdiraxmaan waxaan jeclahay weli inaad khadka taleefonka ku jirtid inkastoo cabaar aan ku maqli waayey laakiin waxaan jeclahay ugu dambeyntii su-aal inaan ku weydiiyo goormaad laga yaabaa baan isleedahay inaanu heli doono dowlad soomaaliyeed oo ciidan ku filan haysata oo dhulka hooyo oo dhan ayadu gacanta ku dhigta oo insha allahu tacaala markaas looga maarmo dad qalaad iyo waxyaala lagu marmarsiyoodaba kuma fahmin maxaa tiri igu celi waa hagaag goormaa laga yaabaa baan isleedahay imisaynu dowladda ku qaadanaysaa in la helo ciidan soomaaliyeed oo ku filan ammaanka dalkeena hooyo runtii dawladda dadaal ugu jirtaa fara badan oo xoog iyo juhdi iyo dadaalba waa iskugu geyn doonta oo soo celiya haybadii iyo sharafkii iyo karaamadii soomaalinimadii iyo soo celiya taas maanta runtii waa dadaalkeeda hadda waa haynaayo in isku garab siiyo oo shacab loo garab istaago in dib loo soo celiyo ciidanka siday oo geesiyada africa lagu tilmaami jiray in dib loo soo celiyo taas waqti badan ay u baahan tahay dadaalkeedana waa wadnaa meel fiicanna runtii waa maraysaa mudane cabdiraxmaan wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga qaranka soomaaliyeed oo xilligan ku sugan magaalada muqdisho oo in fara badan nagala shaqeeyay barnaamijkan inuu caawa hawada galo aada iyo aad baan kugu mahad celinaya waa hagaag khayr allah ku siiyo waxaan jecelahay iminkan inaan kusoo dhaweeyo sheekh maxamed idriis oo asagu ila fadhiya waxaa nagu soo socdoo kale sheekh bashiir axmed salaad iyo dad fara badan oo nu jecelnahay barnaamijkan nagala qeyb qaataan sheekh umal waanu u noqonaynaa weliba